dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda Qatar ayaa olole diblomaasiyadeed oo hoose ka wada dalalka xulafada la si ay gacan ugu helaan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lagu qanciyo inuu soo gaabiyo howlgallada militari ee ka dhanka ah Iran. Trump ayay ka dalbadeen inuu raadiyo waddo looga baxo xiisadda taagan sida ay xaqiijiyeen ila xogayaal arrintan. Wadamada Khaliijka ayaa raadinaya isbahaysi ballaaran oo horseeda in colaadda lagu soo afjaro qaab diblomaasiyadeed oo degdeg ah. Ujeedada ugu weyn ee dalalkan ayaa ah in laga hortago in xiisaddu ay ku fito gobolka intiisa kale lagana baaqsado naxdin dhaqaale oo daba dheeraata taasoo saameynaysa qiimaha tamarta adduunka. Sida ay xuseen shakhsiyaad magacyadooda qariyay maadaama xogtan aan weli si shaacsan loo soo bandhigin sida ay qoreen wararka qaar. qiimeyn ay samaysay dowladda Qatar oo lala wadaagay warbaahinta Bloomberg ayaa ka digtay in haddii marinada maraakiibta ee gobolku ay sii xidhnaadaan ilaa bartamaha toddobaadkan la filan karo in suuqyada caalamku ay kala kulmaan saameyn ku xooggan tii isbeddelkii degdeg ahaa ee ku yimi qiimaha gaaska dabiiciga maalintii Isniinta. Tani ayaa imaanaysa kadib markii dowladda Qatar ay xidhay xarunteedii ugu weyneed adduunka ee soo saarta gaaska dabiiciga ah ee dareeraha laga dhigay kadib markii ay bartilmaameedsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay soo riday. Weerarkan ayaa sababay in qiimaha gaaska ee qaaradda Yurub uu cirka isku shareeray in ka badan 50%.